بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan walaalaha muslimiinta meel walba ay joogaan sida aad arkaysiin waxaan maanta halkan aan soo booqanay tuulooyinkan jiinka hoos yimaado gobolka Shabeellaha Dhexe. tuulooyinkan waxay hoos yimaadaan degmada Jowhar waxayna ka kooban yihiin ilaa iyo dhowr iyo 20 tuulo. hadda booqashadeena waad u jeediin waa tuuladii 18aad oo haatan aan ku joogno. tuuladan waxaa la yiraahdaa Boodale. sida aad arkaysiin horeyna waad soo aragteen kuwa oo dhibaataysan iyo sidoo kaleete kuwa aad arkaysiin godadada ay ka faaganayaan waa biyahaas ayaa noloshoodii dhan ay ka raadiyaan. maanta markay u kurgashay hay-adda Mama Caasha Foundation sida aad arkaysiin baahida meesha ka jirto waa sidan kullati insha Allah booqashadii ayaan ku guda jirnaa waana arki doontiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. Mama Caasha waa u jeedin dhibaatadana hayso unuka meeshaan dhibaataa nagu hayso biyo la'aan waa noo dheer tahay hunguri xumo hunguri ma haysani meeshaan shubanaa ka dilaacay duuduubo waqtiga ilmihii waa kan biyo la'aan hayso unukii waa dandaraysannahay webigaanaan biyahaan u jeedin oo qodqodkan waa kan kuwaasan unukaan maanta adduunyo kuwaanaan ilaahay nagu soo reebay alxamdulilah rabbil caalamiin shukru waa u jeedin waxaan caboohayn cuduraa noo dheer baahiyaa noo dheer shuban biyahaan shubanaan kaqa u jeedin waa u jeedin naf ma hayno unuka maanta maalintii kaamirada leenaa laga fiirinaay maaha unuka wax qabadaan u baahannahay ummadda nabi maxamedaan wax ka rabnaay oo na fiiriyow hayso dhibaatada waa u jeedin shuban waana laay ilaaha joogo meeshaan reer Mama Caasha waa u jeedin biyahan waa u jeedin dhibaatadan waa u jeedin ummadda nabi maxamedaan wax ka sugaynay inta islaam oo na fiirsanaysaan wax ka sugaynaa wax ma hayno gacantaani wax ma ku jirto webigaanaan ku noolnahay dhulkaanaan ku noolnahay alxamdulilah ilaaha wax og webi dhexdiisaan ku jirnay webiga waay waxaan hadda aan dhex fadhino webiga waa qodqod aa la yidhaha qodqodkaasaan biyo ka dhaansanoo hayna waa u jeedin waa kana shuban waa noo dheeryahay jeermiska waa ku jiraa nafaan ka raadiyoynaa biyo la'aan nolosha dhan biyo waay aa u jeedin noloshayna biyay ku xiran tahay ilmihii waa u jeedin waa rafaadsan yihiin webiga waa kan xaalkiisa saan waay ilaaha joogo wax walbaba alxamdulilah rabbil caalamiin shukru. maama hadda biyahan idinka kan ma cabaysiin hadda oo meesha hadda arkoon maxaan kaloon haynay baabay alxamdulilah intaanaan ba alxamdulilah dhahoynay naftaan ku qaysanaynay badar ma haysano ma laga yaabaa biyaha naftigiisa inaa waaysiin alxamdulilah ilaahay horta intaan ilaahayba nimcadiisa waa ilaahay qodqodka ilaahaba mahadiisa waa din ceel haysan ceelna noola qado hay hadda meesha ku dhex jirno wabigii waa Mama Caasha Foundation waxay kugu soo booqatay ilaa ay hadda dhowr tuulooyin 18 tuulo aan soo marnay ma fahamtay idinka 18 tuulo ku marka baahidana waa wada qabtiin maxaa hadda ummadda islaamka ay ka codsanaysiin ummadda islaamka waxaan ku codsanaynaa intii noo jeedo waa noo jeeday inta muuqayni maqalkayna maqlooyso unuka reer Boodaalana la yiraa jiinka wabigiisaan degan lahay badar ma haysani biyo ma haysani alxamdulilah ilaaha ma hadda iskale inaan nala soo dayo daawaan u baahannahay
hurguriyaan u baahannahay biyaan u baahannaha ceel ha noola qodo reer maama caasha mix ceel ha noola qodo ummadda muslimiinta ceel ha noo qodaano ayu maama aada umaasan tahay sida aad arkaysiin hay-adda maama caasha foundation waxaan u korgalnay si aan u ogaano dadkan baahida haysato waad dareemi kartiin qofka bini aadanka wuxuu uu noloshiisa ku dhisan yahay waa biyo laakiin waa dareemi kartaa dadkii noloshooda ay ku soo aroortay in ay biyahan ay ka dhigtaan biyo ay cabaan noloshooda ay ku maareeyaan raashinkooda ay ku karsadaan waad arkaysiin guryahoodii raashinkay ku karsadaan waa arkaysaa sidoo kaleete mar alaala markaa aad tagtid meel alaala meeshii ka mid ah tuulooyinkan hadda aan soo marnay runtii aad ayay u dhibaataysan yihiin naxaasiyadii webigii ku jiray webigii ku guray meesha hadda aan taaganna oo aan ku dhex soconana waa webigii dhexdiisii sanadkan sidaanay noqotay weligeedna lama arkin sidaanoo kaleete sida ay noo sheegeen marka walaalaha muslimiinta hay-adda maama caasha foundation sidoo kaleete telefishinka caalamiga universal t v dhammaan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin ummadda soomaaliyeed oo kheyrka jecelna mar walba waxaan leeyahay waad u jeediin maamadan hadda waa maamo 80 jir ah haddana aan haysanin biyo la-aan ka cawanayso dhulkaas xitaa qof walba meesha oo qoto uu asiga leeyahay ma ahan xataa biyahan aniga qotay meesha anaa biyaheeda kala baxaayo qofkii oo xoog leh inuu asiga meel qoto marka insha allah waxaan rajeynaa in aad baahidan aad kaga soo jawaabi doontiin hay-adda maama caasha foundation insha allah garabkeeda inaad soo istaagtiin si ay ummadaas iyo ummadaha kaleeto lamidka ahbo ay u baahi tirto si ay biyo u siiso kii ceel siin karo oo u qodi karo kii booyad u gadi karo insha allah waxaan rajaynaynaa in aad baahidaas aad ka soo jawaabi doontiin wabillahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يعربي مدوا يد العون لطالب غدا في الطلب هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب يا إخوة